السلام عليكم ورحمة الله. isku soo noqod wanaagsan. Tutorialka waxaan ku dhisi doonaa to-do list app ama to-do app kolba sidaad u taqaanid. Inta ugu badan waxaan isticmaali doonaa JavaScript functionality-ga markaasi uu qabanayo. Sida awgeed haddii aad ku cusub tahay JavaScript ama programming-ka waxa kuu noqon doonaa markaasi exercise aad u fiican. Okay, ugu horeynta markaasi aan idin tuso siduu u ekaan doono project-gani. waxa uu ekaan doonaa markaas sida tan halkan waxaan ku haysanaa markaasi input aad ka gelin doontid ama aad ku qori doontid listiga shayada aad doonaysid markaa maalinta. halkan waxaan ku haysanaa markaasi search input oo aad ℍ𝕠𝕠𝕕𝕦𝕒 markaasi marka aad gelisid listiyada aad markaa kaga dhex dayday karaysid shayga aad u baahnayd. Tusaale waxaad gelisay waxyaabo fara badan, shay gaar aad markaa u baahan tahay. halkan aad markaasi ka raadin doontaa. halkan waxaan ku haysanaa markaasi message ay ku qorantay markaasi start adding tasks. halkan waxaan ku haysanaa button aad ka delete gareyn kartid ama aad ka masixi kartid dhammaan ashyaada kugu jira markaasi listiga. halkan waxaan ku haysanaa button. Okay, marka haddaynu eegno functionality-ga iyo siduu u shaqeynayo, message-kan wuxuu soo bixi doonaa keliyaata marka uu qofku sidaa u soo galo appka. markaad listiga ku dartid sida tusaale ahaan haddaynu halkan idhaahno shopping way masaxmaysaa markaasi message-kii. kadib halkan waxaa ku iman doonaa shaygii aad gelisay. haddaynu dhowr shay gelino do homework, study 2 hours, help mom maybe. Okay, intaas way ku filantay markaa. inta markaa shay aad u baahan tahay ayaad gelin kartaa. halkan waxaan ku haysanaa markaa button ama link aad ka delete gareyn karaysid markaa shaygan. Okay, halkan waxaan ku haysanaa check mark aad tusaale ahaan marka aad dhammaysid shoppingkii oo kale aad soo dhammaysay waxaad taaban doontaa markaasi bartan. Okay, haddaan taabto hadda waxaan arkayaa inay green isku bedelso. haddaan delete ka taabtana iyadii oo dhan markaa way delete garaysmaysaa. halka aad clear button-kana dhammaantood ka wada delete garayn karaysid. haddaan ku dhufto hadda wuxuu weydiinayaa markaasi are you sure. Okay, markaan idhaahdana wuu delete garayn doonaa. marka intaasuu ka kooban yahay project aan dhisayno. project-gan waxaan si toosa markaasi uga soo qaaday kooraska aan ku bixinay markaasi xirfada academy. sida awgeed haddaad doonaysid inaad baratid programming-ka gaar ahaan luqadda JavaScript waxaad tegi doontaa halkaas. linkiga waxaan dhigi doonaa qaybta hoose, halkaasaad markaasi ka eegi doontaa. aynu u gudagalna markaa project-ga. Okay, aan taga markaasi halkan kadibna aan samaysto folder. waxaan u bixin doonaa markaasi to do app. kadibna waxaan ku furi doonaa markaa Visual Studio. dabcan adigu code editor-kii aad haysatid ayaad markaasi ku furi kartaa haddii uu markaasi Visual Studio yahay iyo haddii uu mid kale yahayba. Okay, marka daaqadan aan inoo yarayn doonaa si aynu u arki karno wax kasta. Let me make it smaller. Okay, haddaan halkan imaado aan sameeyo markaasi file html index.html baan odhan doonaa. kan aynu iska xidhno. Okay, waxaan taaban doonaa markaasi exclamation mark si ay igu samaysmato markaasi boilerplate ay ku jiraan markaasi head tag, body tag iyo html tag. Okay, haddaan title-ka idhaahdo markaa to do app ama to do list, you can call it whatever you want. haddaan wax yar ku tuso tusaale ahaan inoo geli 1 2 3 saddexdaa mar inoo geli. haddaan u imaado markaasi UI design-ka waxaan u kala qaybin doonaa markaasi laba qaybood. waa qaybtan koobaad oo noqon doonta markaasi qaybta input-ka iyo qaybtan labaad oo noqon doonta qaybta output-ka. Okay, waxaan samayn doonaa markaasi div hayne labada qaybood. waxaan odhan doonaa container. dabcan html-ka wax saa u badan kama sharaxi doono. Okay, marka waxaan samayn doonaa qaybta markaasi input UI-ga. waxaan odhan doonaa ii samee class name la idhaahdo input UI. Okay, halkanaan iyadana iman doonaa. waxaan samayn doonaa markaasi
div class namekiisu yahay output.ui. Okay, haddaan ku horeeyo markaasi qaybtan inputka, halkan waxaynu ku haysanaa markaasi head tag ay ku qorantay to do list, iyo halkan aynu ku haysanaa markaasi input, iyo halkan oo aynu ku haysano input submit ama button. Okay, headkaas h3 haddaan idhaahdo oo aan ku dul qoro markaasi to do list, waxaan ku xigsiin doonaa markaa form aan class namekeeda u bixin doono form. Okay, wax action ama yeelan doonto, gudaheeda waxaan ku dhex samayn doonaa markaasi input, tabekiisu yahay text. Halkaa haddaad aragtid waxa ku dul qoran ama ku dhex qoran task name. Marka waxaan odhan doonaa placeholderka waxaad ku qortaa task name. Okay, sidoo kale waxaan u samayn doonaa markaasi class name waan odhan doonaa markaas input task. Okay, tan waa inay noqotaa markaas self closing input. Qaybtan haddaynu iska xidhno si ay meeshan noogu yara weynaato, waxaan rajaynayaa farta inaad arkaysaan. haddaan wax yar ku daro maybe yara weynayo. Okay, waxaan samayn doonaa markaasi inputkii kale oo uu tabekeedu yahay markaa submit, si uu markaa button u noqdo oo hadhowtoole aynu ka submit garayn karno. Valueha ama textida ku dhex qormi doontaana waxay noqon doontaa add. Okay, let me save it. waxaan ku furi doonaa markaasi Visual Studio extension ku jiro oo la dhahdo markaasi live server. hadduuna kugu jirin waxaad tegi doontaa markaasi qaybta extensionska, kadib baad halkan ka daydii doontaa live server. waa kaas markaa bartaasaad kasoo install garaysan doontaa. Okay, waxaynu haysanaa markaa inputkii iyo markaa buttonkaas. haddaynu intaa kaga nimaadno qaybta input UI-ga, aan u nimaadno qaybta markaasi output UI. halkan boot baan ka iloobay. Okay, qaybtan waxaan ku haysanaa ugu horeyn input iyo iconkaas. marka waxaan odhan doonaa input uu tabeku yahay markaasi text. nameka waxaan odhan doonaa markaasi filter. wax id uma samayn doono, laakiin waxaan u samayn doonaa class name la idhaahdo markaasi filter. sidoo kale halkan waxaynu ku haysanaa markaa placeholder text markaa ku dhex qoran halkaa. waxaan ku qori doonaa search task. Okay, label baan u samayn doonaa tan. waxaan odhan doonaa label for filter. Okay, haddaan save idhaahdo, waxaan arkanaa inay halkaas inoo timid inputkeeni markaa filterta ahayd. muxuu ahaa iconka aanu halkaa ku haysanana labelkanaan markaa dhex dhigi doonaa. aduu haddaanad isticmaalayn muxuu ahaa Macbook ama computer ku ogolaanaya imageskan inaad isticmaashid, waxa aad kasoo download garaysan kartaa icons meesha la dhahdo markaasi flat icon. halkaasaad tegi doontaa, deetana waxa aad gelin doontaa search tusaale ahaan, kadibna waxaa lasoo degi doontaa iconada mid ka mid a. Okay, anu markaa waxaan isticmaali doonaa iconkan computerada igu jira. hadda markaan save idhi waxaan arkanaa inuu bartaa imid. Okay, intaa waxaa ku xiga markaa yani ul baynu halkan ku haysanaa. marka ul taasaynu inkastuu noqon doono dynamic oo aynu kaga samayn doono markaasi ku samayn doono maxaa la dhahdaa JavaScript-ga, laakiin haddaynu hadda kusii samayno html-ka waan comment garayn doonaa, laakiin suu ekaanayaan doonaya inaan ku tuso. waxaan odhan doonaa ka dhex bixin markaa output div-ka. waxaan odhan doonaa waxaad ii samaysaa ul class namekana waxa aad u bixisaa tasks. halkan aan markaasi dhigi doonaa listigeygii unorder list, yani elementkii uu ka koobnaan lahaa ul-ku. haddaan u bixiyo maadaama xabadxabatay task, ul-kuna tasks ay ahayd, kadib waxaan odhan doonaa haddaynu eegno halkan, waxaynu halkan ku haysanaa textdii. halkan waxaynu ku haysanaa laba icon. Okay, haddaan halkan idhaahdo text, kadibna aan sameeyo div ay noogu guda jirayaan markaa iconadu, waxaan odhan doonaa markaa u bixi icons, kadibna waxaan samayn doonaa iconka ugu horeeya
oo ah markaasi ka delete-ka. marka waxaan odhan doonaa a delete class, yani waxaan samaynayaa anchor tag kadibna class name-ka waxaan ka dhigayaa delete. halkan waxaan gelin doonaa hashtag, meelna markaa linkigaas inama geynayo. halkana waxaan gelin doonaa iconka markaa bartaan ku haysto. dan marka la kusoo celiya dad u baahanta iconada waxaad tegi kartaa flat icon haddayna sidani kuu shaqaynayn. intanun haddaan copy idhaahdo oo aan halkan ku bedela markaa class name-ka done, iconkana aan ka dhigo check mark markaa. okay, haddaan hadda safe idhaahdo waxaan arkayaa inay noo soo baxday markaa text iyo labadii icon. hadaynu nimaadno halkan waxaa kaloon haysanaa markaa buttonkan. intaanan buttonka samayn bilowgii waxaad arkayseen inaynu haysanay markaa box ay ku qorantay message kuu sheegay inaad bilowdid markaa ama aad gelisid input. okay, halkan aan iman doonaa markaa kaasaan samayn doonaa. ul-ta ayaan kasoo dhex bixi doonaa, kadibna waxaan odhan doonaa ii samee div class name-kiisu yahay message. waxaan ku dhex qori doonaa markaasi paragraph p tag, kadibna waxaan ku dhex qori doonaa start adding tasks iyo markaa iconka gacanta ah. marka haddaan safe idhaahdo waxaan arkana inuu bartaa kasoo baxay. hadda si qurux badan uma ekaan doono dabcan, marka css-ta lagu daro ayuu qurux badnaan doonaa. ugu dambeynna markaasi aynu samayno buttonka aad ka delete garaynaysid waxaba. okay, let me check. divkan waxa aan dhex gelin doonaa ul-ta dhexdiisa, ul-ta dhexdeeda. kadib baan ka dhex bixi doonaa. halkan aan markaa ku samayn doonaa linkigii ama buttonkii aad ka delete garaynaysa. waxaan odhan doonaa ii samee anchor tag link, class name-kiisu yahay clear tasks. gudahana waxaan ku dhex qori doonaa markaa clear. haddaan safe idhaahdo waxaan arkayaa inay halkaas iigu soo baxday buttonkii aynu ka delete garaynaynay. dabcan css-ta ayaa ka dhigi doonta markaasi mid qurux badan. okay, aan u tagna markaasi qeybta css-teena. halkan aan iman doonaa, waxaan samayn doonaa markaasi file css a. waxaan u bixin doonaa style.css. intaanan bilaabin qoritaanka css-ta aan kusoo xidhiiriya markaa filekan html-keena. halkan aan iman doonaa, waxaan odhan doonaa link css iyo magicii markaa fileka aan ku xidhiiriyay. okay, haddaan halkan tago ugu horeyn shayga aan ku bilaabi doonaa wax weeyaan xidig. xidigtaas waxay ka turjumaysaa markaa dhammaan elementska ku dhex jira pageka. waxaan odhan doonaa markaasi paddingkooda waxaad ka dhigtaa 0, marginkana sidoo kale waxaad ka dhigtaa 0. markaan safe idhaahdo waxaan arkayaa inay dhammaan contentidii ay ku dhegtay markaasi gidaarka. sidoo kale waxaan odhan doonaa box sizing border box si ay wax walba markaas ugu guda jiraan bogoskooda ama meeshooda. bodigan ku xigsiin doonaa markaasi waxaan odhan doonaa ugu horeyn heightka waxaad ka dhigtaa 100 view height. waxay ka dhigantay markaa shaashada inta la arkayo. background colorkana waxaad ka dhigtaa hashtag fc. safe idhaahdo waxsaas isma bedelayaan, waa color caddaan xiga markaas oo aanan toos caddaan wadahayn. waxaan odhan doonaa font family markaa waxa aad ka dhigtaa sans serif. font size-kana waxaad ka dhigtaa 1.2 ram. sidoo kale waxa aad qoraalka colorkiisa aad ka dhigtaa color RGB 143. safe. waxaan arkanaa inay isbedeshay markaa qoraalkii, sizekii iyo markaasi colorkii. okay, inta aan kaga taga markaa bodiga aan u galo markaa containerkani halkan ku haysanay. okay, ugu horeyn waxaan odhan doonaa markaasi heightkiisa waxaad ka dhigtaa 100%. heightka ugu yar ee uu yeelan karana waxaad ka dhigtaa 80 view height. widthka waxaad ka dhigtaa
80 view height view width baan jeedaa. Okay, hadda wax isbedel ma dareemaysid, laakiin isbedelku uu dhacay. oo haddaan ku tuso background color haddaan idhaahdo salaan haddaan colorkan ka dhigo waan arkaynaa inuu yaraaday markaa widthkiisii heightkiina uu wada qabsaday markaasi shaashada. Okay, cabirka ugu badan ee widthka uu yeelan karo waxaan odhanayaa waxaad ka dhigtaa 600 pixels. Okay, waxaan u samayn doonaa markaasi margin top iyo down waxaan ka dhigi doonaa 20 pixels. hareerahana waxaan odhan doonaa auto si uu dhexda u taga markaa. hadda wuxuu tegay markaasi dhexda. contentiga waan hagaajin doonaa iyadana dhexdaynu geeni doonaa, laakiin hadda waxa uu joogaa markaasi dhexda. waxaan u samayn doonaa markaasi border. waxaan odhan doonaa 2 pixels solid white. safe haddaan idhaahdo hadda si fiican uma arki karaysid, laakiin borderkii waa kan markaa. haddaan hadda halkan idhaahdo border markaasi red ah tusaale ahaan halkaasuu kasoo baxaya, laakiin waxaan isticmaali doonaa markaasi color white ah. Okay, haddaynu kan eegno waan arkaynaa inuu leeyahay markaa box shadow hareeraha ah markaa. waxaan odhan doonaa markaa box shadow 5 pixels 5 pixels 15 pixels -1 pixels RGBA 0.5. safe idhaahdo waan arkaynaa inuu soo baxay markaa box shadowgii. waxaa kaloon u samayn doonaa markaasi hareeraha si uga soo laabto border radius 10 pixels. wakaas markaasi hareeraha kasoo laabtay. hadhow toolo marka qoraal haddii ay badato markaas listiga la gelinayaa si qofku markaasi hoos uu ugu daadegi karo oo listigii ay hoos u tagto wixii dheeraadkeen halkan wada deeqayn. waxaan odhan doonaa markaasi overflow hidden ma odhan doono, laakiin waxaan odhan doonaa scroll. very important inaad markaasi taa ku dartid, sababta hadhow toole waxaa laga yaabaa in contentigii ay dhaafto diifkan markaa oo meel maran ay tagto. Okay, inta haddaynu kaga tagno containerka waxaan u imanaynaa markaa titleka. waxaynu haysanay bartaa ku haysanay markaa h3. waxaan odhan doonaa markaasi h3gaasi wuxuu ku dhex jiraa containerka. h3 keliyatana waad odhan kartaa maadaama aynu haysano hal h3 keliyata. colorkiisaan odhan doonaa waxaad ka dhigtaa white. marginna markaasi u samee hareerahoo dhan 4 pixels. inaga masaxtaan hadda waa kaas markaasi white noqday. kama dhex arki karayna hadda. si aynu u aragno waxaan odhan doonaa waxaan u teginaa markaasi input UI-ga. input UI-gaas colorkiisa backgroundkiisa aynu bedelaynaa. waxaan odhan doonaa markaasi background colorkiisa waxaad ka dhigtaa waa laba color oo markaasi isku jirta. haddaynu eegna halkan yani color keliya tama. marka waxaan odhan doonaa background color C59AA0. safe idhaahdo waka colorkaasi hadda soo baxay, laakiin waxaan doonaynaa inaynu markaasi color kale ku dhex khaladno. marka waxaan odhan doonaa background image linear gradient. deetana waxaan odhan doonaa 315 degree. colorka kale markaasi aan doonaya inaan ku dhex qaso intuu noqonayo iyo colorka kale aan doonaya markaasi inaan geliyo 589FAC oo 74% noqon doona markaa. yani waa labada color oo aynu doonayno inaynu isku dhex qasno. safe idhaahdo waan arkaynu markaasi ku dhex qasmay colorkii oo ay isku ekaadeen. contentidanaan markaa odhan doonaa waa inaad dhexda dhigtaa. waxaan odhan doonaa markaasi text align center. very nice. heightka waxaad ka dhigtaa markaa waxoogaa uu yaro dhuuban yahay inuu yaro bata markaa heightkiisu 120 pixels. waxaan ku dari doonaa markaasi padding 15 pixels inay textu markaa hareeraha kasoo yaro baxdo. hadda markaynu nidhi padding waxaan arkanaa in textidii ay kasoo yaro fuuqday hareeraha markaasi. waxaa kaloon ku dari doonaa margin bottom si uu ka hoose markaa wax yar uga durko. way isku egyihiin markaa intaas.
marka laga reebo markaa inputka intaynaan inputka u tegin aynu habayna markaas output-keenan okay waxaan odhan doonaa dot output ui ama aynu dhamaystirno inputka yani waxyaabaha ku dhex jira iyo waxaas oo dhan okay inputkan odhan doonaa u tag kadibna waxaan u samayn doonaa ugu horeyn padding 6 pixels font size-kana waxoogaa markaa waan yaro weynaysiin doonaa 20 pixel baan ka dhigi doonaa waxaan u samayn doonaa markaas ama waxaan ka saari doonaa hadda marka la dul tago waxaan arkanaa inay border leeday waxaan ka saari doonaa marka borderka ayre ku jira waxaan odhan doonaa markaas border none wakaa markaa ka baxay waxaa kaloon arkaynaa marka la dul tago inay leedahay border markaa kusoo wareegsamaya aynu halkan tagno waxaan odhanaynaa markaa input focus outline none yani marka focuska la saaro waa in uu ka masaxmaa markaa borderka hadda soo baxay waxaa kaloon haysanaa tan marka la dul tago waxaan arkanaa wax yaroo khafiifa oo border inuu soo dhexgelayo marka borderkaas aynu u samayn doonaa waxaan odhan doonaa border solid 1 pixels light late gray okay, hadda markaynu dul tagno okay hadda soo gelaya okay inputkan waxay leedahay markaasi border radius wax yar marka aynu ku darno keenana oo nidhaano hareeraha kasoo yara wareegto waxaan odhan doonaa markaasi border radius 3 pixels very cool heightkeedana waxaan ka dhigi doonaa markaasi 40 pixels waxoogaa u yara weynaato that's it inputku intaasuu ku eg yahay aynu ku xigsiina markaasi buttonka sorry intaa kuma eka buttonkaas aynaan dhammayn waxaan odhan doonaa markaasi input waxaa target garaysaa markaa kataybkiisu yahay submit yani buttonka background colorka ayaan ka dhigi doonaa markaa RGB 143161 save markaan idhaahdo wakaa markaasi backgroundki yeeshay colorkana waxaynu ka dhigi doonaa white sidoo kale waxaan u samayn doonaa border radius 3 pixels save wataas markaa haddaynu ka dhammaanay markaa saan rajaynayo qeybtii markaasi inputka aynu u nimaadno markaa qeybtan outputka waxaan odhanaynaa markaasi outputka waxaad u samaysaa min height 520 pixels cabirka dherarka ugu yar uu yeelan karo hadaan ku tuso hadda inaga masaxintan si aan kuu tuso siday u ekaanayso background aan u samayno ugu horeynta let me say red waxaan arkanaa inuu intaa yahay laakiin markaan idhaahdo min height 520 pixels ma shaqaynayso sorry halkan aan ku qoray markaasi width waa min height maaha min width okay hadda waxaan arkanaa inuu halkaa tegaya markaa yani waa cabirka ugu yar uu yeelan karo inaga masax markaa halkan backgroundkiisana waxaad ka dhigtaa markaa white okay aan u nimaadno markaasi kuwan ulta okay waxaan odhan doonaa markaasi output ui ul ugu horeyn waxaan doonayaa waxaan iska masixi doonaa markaasi dhibicdii yareed ee agtaalay unordered listiga marka waxaan odhan doonaa list style none waxaa kaloon u samayn doonaa markaasi padding 20 pixels waa kuwa markaa waxoogaa kasoo yara durkayaalka aan u yimaado markaa li-da hadda output ui ul li ugu horeyn waxaan u samayn doonaa margin 0.8 gram font size-kana waxaan ka dhigi doonaa 20 pixels si ay waxoogaa u yara waaweynaato waxaan u samayn doonaa markaasi border aan idhaahde border bottom haddaynu halkan eegno waxaan arkanaa in list kastaa buu leeyahay border bottom waxaan odhan doonaa markaasi solid 0.1 pixels RGB 214 save wakaa markaa inoo soo baxay underline-kii
Okay, font size can I think we don't need it sidii hore ku fiicnayd xogaa weero waaweyn tahay. Okay, waxaan isticmaali doonaa markaasi si ay isku garab degaan display flex ama flex box baan isticmaali doonaa. waxaan odhanayaa markaasi display flex save markaan idhaahdo waxaan arkayaa inay ag degeen si ay u kala fogaadaan. markaa waxaan odhan doonaa justify content space between waa kuwa markaasi kala fogaaday. Okay, aan target gareeyo markaas linkiyada iyagana si aynu uga masaxno markaa underline-ta ku hoos jirta. marka waxaan odhan doonaa keliyatan qori doonaa maadaama aynu pagekeena ku jirin muxuu ahaa anchor tagyo kale. marka waxaan odhan doonaa text decoration none oo kuwa marka ka masaxmay laymankii ku hoos qornaa. waxaa kaloon u samayn doonaa margin left si ay wax yar u kala fogaadaan 15 pixels. let me check. Okay, margin left wayaan markaa si ay wax yar uun markaa u kala fogaadaan. haddaynu eegno hadda way isku eeg yihiin sidaasi exactly. cursorkana waxaan odhan doonaa pointer si marka la dul tago uu pointerkaas markaa ama gacantaas usoo baxdo. marka la dul tago eeda ama anchor tagyadeena hover waxaynu odhan doonaa haddaynu eegno imika kan dhamayska tiran waxaan arkanaa opacitygiisu inay wax yar khafiif noqonayso. Canon waxaan arkanaa inay waxba ku dhacayn. marka waxaan odhan doonaa marka la dul imaado waa in opacitygu ay noqotaa 0.6 ama 60%. sidoo kale waxaan u samayn doonaa color RGBA 14.224.102.0.9 save. hadda marka la dul tago waxaan arkanaa inuu markaasi ay leeyihiin waxoogaa yar oo opacity ah. Okay, aynu ku xigsiina markaa filterteenan. Okay, waxaan arkanaa inay leedahay background markaa gray ah. aan u imaado halkan oon idhaahdo dot filter. marka waxaan odhan doonaa background color RGBA ama RGB keliyata 247. let me check it. wataa markaasi kalarkeedu uu sidaas noqday grayga ah. waxaa kaloon u samayn doonaa margin 2% ah si ay markaasi uga soo gidaarka markaasi uga soo go'do. that looks very beautiful to me. intan waxa inoo dhiman markaasi aynu u tagno markaasi qaybtan messageka ama fariinta. waxaan usoo samaynay class la idhaahdo markaasi message. waxaan odhan doonaa background colorka waxaad ka dhigtaa isla colorkan oo kale grayga. marka halkanaynu iyadana sidaa ka dhigi doonaa waa kaas. markaa waxaa kaloon u samayn doonaa height 200 pixels ah. textida ku dhex qoran halkaas markaa boxka ama messageka colorkeedana waxaynu ka dhigi doonaa gray. margin baan u samayn doonaa markaasi 2 rem ah si ay uga soo durugto markaa listiga. padding baan markaasi sidoo kale u samayn doonaa si textidaasi markaasi dhexda u timaado. waxaan odhan doonaa padding top 3 rem maybe. okay, maybe 4 rem ka dhig. dhexdan keeni doonaa markaa textida. waxaan odhan doonaa text align center. there you go. messagekiina waa inaga markaa halkaa ku haysana. waxaa kaliya hadda inaga dhiman stylingka. waxaan u malaynayaa inuu yahay buttonkan markaa. waxaan u bixinay markaasi class name la idhaahdo clear tasks. background baan u samayn doonaa markaa. backgroundka waxaan ka dhigi doonaa light coral ama colorka markaasi sidaa u eg. save. colorka markaa texta ku dhex qoranna waxaan ka dhigi doonaa white. waxaan ku dari doonaa padding 10 pixels ah dhinac walba si markaa textu waxoogaa space u hesho. font sizekana waxoogaa waan yaro weynaysiin doonaa 20 pixels baadaan idhaahdo. haddaynu eegna kan waxaan arkanaa inuu buttonkani soo yaro wareegsan yahay. sidoo kale marka la dul tago inuu hover effect leeyahay. okay, aan ku daro markaasi border radius 5 pixels ah markaa. very beautiful. very clean and beautiful. okay, waxaan odhan doonaa halkan imo waxaad tirahdaa clear tasks. marka la dul tago
waa in uu colorku noqdaa markaasi yani waxa isbedelaya backgroundkii baynu ka dhigaynaa caddaan hadda halka qoraalkiina aynu ka dhigayno light coral okay backgroundkana waxaa tirahdaa markaa ama background kale oo nooc let me check aan eega background kusuu yahay okay caddaan toosa markaa maaha waa gray okay marka waxaan odhan doonaa RGB 247 247 247 okay gray toosa ma waa light gray weeyaan xogaa yara khafiif ah that's beautiful absolutely nice way isku eegyihiin markaa hadda I think okay buttonkaasi markaa ilownay hovertiisa waxaan tegi doonaa where is input submit waa kan intanaan copy odhan doonaa deetna halkanaan imani kadibna waxaan odhan doonaa hover marka la dul tago background colorkaynu ka dhignaa marka white halka colorkana aynu ka dhignaa RGB 143161 iyo 179 save markaa dheh aynu eegno markaasi waka markaa laakiin kan kale hover effectigaasi waxoogaa waxay u dhacaysaa markaa si yaroo fudud oo aan dhaqso ahayn marka waxaan odhan doonaa transition ku dar transition all 500 millisecond is in and is out that's it guys intaas markaa ku eegyahay qaybta CSS2 aynu u tagnaa hadda qaybta JavaScriptiga intiinaan u tegin let me check inuu wax walba nice yahay everything is okay marka aynu gudubno qaybta JavaScriptiga okay waxaan iman doonaa markaasi halkan kadibna waxa aan samayn doonaa file markaasi JavaScriptia waxaan u bixin doonaa filekan app.js dabcan wixii aad rabto ayaad markaasi u bixin doontaa intaanan iloobin waxaan ku xidhiidhin doonaa markaasi fileka html-ka halka ugu dambeysa bodiga ayaan iman doonaa kadibna waxaan odhan doonaa script source kadibna waxaan ku qori doonaa fileka magaciisa aan hubiya markaasi inay isku xidhiidhsan yihiin haddaan alert idhaahdo just make sure inay wax walba markaasi saxsan yihiin okay way isku xidhiidhsan yihiin qaybtan aan markaasi iska xidhi doonaa maadaama aanu waxba uga baahnayn okay waxa ugu horeeyaan doonayaa wax weeyaan in aan markaasi soo qabto user inputka yani wax kastuu qofku geliyo inaan markaasi soo qabto oo aan save gareeyo waa taskiga ugu horeeya ee aynu samayn doono ama functionalityga ugu horeeya ee aynu samayn doono laakiin intaynaan intaa gaadhin aan idhaahdo dhammaan muxuu ahaa variableskayga halkan sare igu kaydi aan u baahanahay variableka ugu horeeya een u baahanay wax weeyaan waa input fieldka on odhan doono waxaad tagtaa documentka deetana waxaad tirahdaa dot query selector waxaad isticmaali kartaa dabcan haddaad u baahantahay get element by id laakiin waxaan usoo bixiyey magacaan u bixiyey markaasi input fieldka waxa weeyaan waa tan inputkaygii kadibna waxaan u bixiyey ama waxaan u sameeyey class name la idhaahdo input task marka halkan aan odhan doonaa dot input task waxaa kaloon u baahanahay markaasi formta laftarkeeda oon odhan doono cons form documentka tag deetana query selector class name baan u bixiyey markaasi la idhaahdo form waxaa kaloon u baahanahay markaasi elementkan ama inputkan filterta ah ee qofku ka search garayn doono markaasi aan halkan dhigay waatan class name baan u bixiyey la idhaahdo filter iyadana haddaan idhaahdo const search input document.query selector dabcan si haddii muxuu ahaa aad advanced ama intermediate ku tahay oo aad dareemaysid markaasi inaan si tartiiba u sharaxayo waxaad samayn kartaa markaasi speedka ayaad badin kartaa sababtaa ma rabo in dadka bilowga ah aan muxuu ahaa
ay fahmi waayaan oo aan si xawliya markaasi u socdo. halkan waxaan odhan doonaa markaasi filter. waxaa kaloo soo qaban doonaa taskiska laftirkooda oon odhan doono const task document.querySelector. taskisku waxay noo yaaleen markaasi halkan. dhowaan waynu ka takhalusi doonaa dhammaan wixii yaala halkan oo contentigeenu waxay noqon doontaa markaasi mid dynamic isku samaysa. marka comment baan odhan doonaa laakiin aynu ka dhammaan horta variableska. waa kan marka ul tasks. waxaa kaloon u baahanay markaasi buttonkan oon odhan doona const remove all btn wayaan kan markaasi document.querySelector. waxaan u bixiyey kan markaa clear tasks. iyo ta ugu dambaysa oo ah markaasi messagekan diifkan inoo haya markaasi messageka. waxaan odhan doonaa const message box baan u bixin doonaa document.querySelector. waxaan u bixiyey markaasi class name la yidhahdo message. okay, intaasi waxa weeyaan dhammaan variableska aynu u baahanay. kadibna aynu markaasi eegno in qofku uu submit gareeyey. tusaale ahaan iminka haddii uu qofku iyadoo maran submit gareeyo waxaynu u baahanay inaynu u sheegno in ku nidhaano waa in aad gelisaa wax oo aynu markaasi ka xanibno in input field maran uu gudbin karo. okay, waxaan samayn doonaa markaasi inaan markaasi event listener ku daro formta. oo sababtaan ugu daraya maxay tahay oo input fieldka aanan ugu darayn. sababta waxa weeyaan haddaynu imika console loogeena ku eegno formtaas input fieldku waxa uu ku dhex jiraa markaasi formta. oo waxaan rabaa markaasi formta laftirkeeda marka la submit gareeyo in uu dhaco markaa functionka aynu u baahanay. sida awgeed baan ugu dari doonaa formta laftirkeeda. marka waxaan odhanayaa form.add event listener. event listenerkaasi waxay dhegeysanaysaa click maaha laakiin waa submit, yacni marka la submit gareeyo formta laftirkeeda. waxaan odhan doonaa markaasi u yeedh function la idhaahdo add task. functionkan weli maynaan samayn. halkan aan iman doonaa haddaan hakad u kala dhexaysiyo labada. halkan aan iman doonaa markaasaan samayn doonaa functionka la idhaahdo add task. marka waxaynu jeegaraynaynaa oonu doonaynaa inaynu eegno input valueha uu qofku geliyey. marka haddaan idhaahdo console logga inoogu eeg input field .value shaygaa qofku uu geliyey. haddaan hadda save idhaahdo oon halkan imaado oon geliyo tusaale ahaan task 1 oo aan submit idhaahdo waxaan arkayaa inay noo soo baxaysa markaasi shaygii uu qofku geliyey. waxaan arkayna inay reloading samaynayso markaasi formtenani oo markasta oo shay la geliyo waxaan arkanaa inuu reloading dhacayo uu pagekii reloading isku samaynayo. si aynu uga joojino taas waxaa la idhahdaa markaasi shayga reloadingka formsku ay leeyihiin default behavior. marka halkan ayaan gelin doonaa functionkaygan parameter magacaad rabtaad u bixin doontaa ama element ama waxay aad rabtid. kadib baan halkan iman doonaa oon odhan doonaa prevent default, yani ka jooji behaviorka reloadingta ay iskuso samaynayso. dan hadda idhaahdo task 1 waxaan arkayaa inaynu wax reloading dhacayn hadda oo markaan shay geliyo in aanu markaasi pageku isku samaynayn wax reloadinga. halkan ayaad markaasi ka arki kartaa. console loggan uma baahnin, waxaan doonaya inaan idinku tuso. kadib waxaan odhan doonaa if input field .value haddii uu markaasi empty yahay waxaynu odhan doonaa alert. waxaynu userka u sheegi doonaa markaasi inuu meel maran gudbiyey, markaa empty task baan odhan doonaa. dan hadda save idhaahdo oo aan hadda halkan imaado oo aan submit idhaahdo waxaan arkanaa inuu inagu leeyahay empty weeyaan. haddii kale else baan odhan doonaa. haddaynu qoraynaa markaasi waxyaabihii aynu u baahnayn inay dhacayeen. haddii aan kusoo laabano html keena waxaynu haysanaa markaasi halkan waxaynu ku haysanaa
ul ay kusii guda jiraan li list aynu inagu markaasi samaysanay yani kan ugu horeeya marka waxaynu u baahanay ma doonayno inuu shaygu sii samaysnaado waxaynu u baahanay in marka uu userku geliyo shay cusub in markaasi si automatiga ay isku samayso marka li dan oo dhan ayaan markaasi comment odhan doonaa yani ka takhallus iyadoo dhan meeshu waa inay empty ahaataa ma doonayno in wax meeshu kusii qorqornaadaan waa inay si dynamica markaasi isku samaysaa marka shayga ugu horeeyaan doonayna inaynu samayno wax weeyaan li halkan aan iman doonaa markaasi oo aan odhan doonaa haddaan halkan comment ku qoro create li waxaan odhan doonaa markaasi const li baan u bixin doonaa etana waxaan odhan doonaa document.create element elementka aynu samaynayna wax weeyaan markaasi li markaynu samayno elementka li-ga ah waa inaynu ku darnaa class name la idhaahdo task si css teena markaasi uu u dabaqo oo css ta ayaynu kusoo hagaajinay marka waxaan odhan doonaa li dot class list u samey markaasi class list magaciisa la idhaahdo task hadda waxay noo samaysmay markaasi li class listigiisu yahay task haddaan console looga ku eegna iminka li-da oo aan markaasi halkaa ku qoro task 1 waxaan arkanaa inay inoo samaysmatay li laakiin text sida ku dhex qorani waa empty oo hadda markaan halkan ku qoray task 1 kumay dhex qormin sida awgeed waxaan u baahanay waxa uu userku geliyey inay ku dhex qormato li-dan aynu samaynay marka waxaan odhan doonaa dan halkan comment ku sameeyo add text to new task daynu intaas samayno waxaan odhan doonaa markaasi li append child yani waxaad dhex gelisaa shaygan markaasi aad ku dhex qori doontid halkan marka waxaan odhan doonaa documentka tag deetana create text node markan element ma samaynaysid laakiin waxaad create garaynaysaa text node text nodekaasi waxa uu noqon doonaa input field-kan aynu haysano value-ha uu qofku geliyay marka waxaan odhan doonaa input field dot value I hope inaad halkaasi markaasi fahantay yani waxaan leenahay li-gan waxaad gelisaa text node ah markaasi shaygii uu qofku geliyey input field-keena marka haddaan hadda halkan imaado oo aan si aan kuu tuso markaasi console logga haddaan ku qoro halkan li kadibna aan halkan tago oon ku qoro tusaale ahaan task 1 waxaan arkanaa inuu inoo samaysmay li ay kusii dhex qorantay shaygii uu qofku geliyey marka haddaan 2 idhaahdo waxaa ku qormi doona task 2 okay waxaynu haysanaa markaa hadda ilaa hadda waxaynu haysanaa li-dii oo inoo kaydinaysa shaygii uu markaasi qofku uu qoray ee uu geliyey input field-keena okay markaynu halkaa joogno waxaynu u baahannahay sidoo kale inaynu samayno markaasi div-kan inoo haynaya markaasi iconska okay halkan aan tegi doonaa waxaan odhan doonaa create div waxaan u bixin doonaa markaasi icons document.create element div weeyaan markaasi elementka aynu samaynayno waa inaynu ku darnaa markaasi class name oo class nameka uu haysto wax weeyaan markaasi icons marka intan I think inaad garanaysaan marka wax commenta u samayn maayo waxaan odhan doonaa un markaasi icons.class list is equal to icons markaynu samaynay markaasi div-kan waa inaynu sii samaynaa markaasi labadan anchor tag oo ay kusii guda jiraan markaasi text sida ama iconska ay ku qorantay delete iyo markaasi check marka hadda waxaynu samaynaynaa haddaan idhaahdo create remove link marka halkan aan tegi doona waxaan odhan doonaa const remove
document.createElement elementka aynu samaynayna wax weeyaan markaasi link ama anchor tag. Class nameka aynu siinayno anchor tagaasina wax weeyaan markaasi delete. kadib waxaan odhan doonaa remove.classList remove. waa inaynu dabeetana usii samaynaa ama iconkan aynu dhex dhignaa. marka waxaan odhan doonaa remove.innerText inner textkiisa waxaynu dhex dhigi doonaa markaasi iconkan. haddii adiga aan kuu shaqaynayn qaabkan aan u isticmaalaya iconada oo uuna lahayn markaasi computerkaagu sidan, waxaad tegi kartaa halkan flat icons, deetana halkan aad ka dhex dayday doontaa sida tusaale ahaan delete, kan oo kale aad markaasi soo qaadan doontaa. inta haddaynu kaga nimaadno samaynta linkiga aynu ka delete garaynayno, sidoo kalena aynu samayno kii dhanta ahaa oo qofku marka uu dhammeeyo uu ku dhufanayay. haddaynu idhaahno const done document.createElement, wuxuu noqon doonaa markaasi a ama anchor tag yani link. class namekiisana waxaynu u samayn doonaa, waynu ka dhigi doonaa let me check class nameka aynu u samaynay halkan done. okay, inner textdiisana waxaynu ka dhigi doonaa icon markaasi check iconkon oo kale ayaynu ka dhigi doonaa. okay, haddaynu imika console looga ku eegno done iyo remove, let me enter something, waxaan arkanaa inay noo soo baxayaan markaasi qaabkii aan u samaynay. hadda waa laba link oo class namekoodu yahay done oo wata markaasi inner text check iyo delete markaa. laakiin arrintan u baahnay wax weeyaan yani hawaday iska dhex yaalaan, waa inaynu dhex gelinaa diifkan aynu samaynay. marka waxaynu odhan doonaa append icons to icons div ama to the div haddaynu idhaahno. marka waxaan soo qaadi doonaa divkeena oo la idhaahdo icons, deetana waxaan odhan doonaa append child remove. ka removeka haddaynu dhex gelino, sidoo kale ka dhantana aynu dhex gelino. haddaynu iminka eegno console.log iconskeena haddaynu eegno, waxay noo soo bixi doonaa markaasi divkii oo ay inoogu dhex jiraan labadeenii anchor tag ama labadeenii link ee aynu hadda samaynay. okay, laakiin divkan laftarkiisu wuxuu taaganyay markaasi hawada. sidoo kale waa inaynu isagana dhex gelinaa li-deena. marka waxaan odhan doonaa append div into li. kadib waxaan odhan doonaa ugu horeynta haddaan idin tuso li-deena aynu marka hore soo samaynay. yani waa tan hadda keliyata waxa ku dhex qoran user inputku waxa uu geliyo, wax kale kuma dhex jiraan. marka waxaynu u baahan nahay in sidoo kale qofkii marka uu text sida ku qoro, sidoo kale inay anchor taagyadiina kusii dhex jiraan meesha. that's why aynu usii dhex gelinayno divkan halkaa. marka waxaan odhan doonaa li append child, kadibna waxaynu dhex gelin doonaa divkeena aynu soo samaysanay ee ahaa icons. haddaan iminka eego mar labaad console.log li-deena haddaynu eegno, let me delete here, waxaan arkanaa inay inoo soo baxayso sorry aan inaga masaxo console.loggaasa isaguna ina qasaya. okay, haddaynu hadda eegno, waxaan arkanaa inay noo soo baxayso li ay kusii jirto qofkii waxa uu geliyey, sidoo kale ay kusii dhex jiraan div oo divkana ay kusii dhex jiraan linkiyadii uu qofku markaasi ka delete garaynay. okay, ugu dambeyn
li-deeni waynu samaynay laakiin meel cidla iska taalaa sidaa awgeed iyadana waxaynu u baahannahay inaynu dhex gelino markaasi ul-keenan yacni meeshan aynu haysano waa inaynu sii dhex gelinaa iyadana oo hadda hawada iska taagantay sidii kuwan kaleba ay u taagnaayeen ee aynu usii dhex gelinay meelahoodii kala duwanaa marka waxaan odhan doonaa halkan aan imanayaa kadibna waxaan odhan doonaa append li into ul-keena waxaynu u bixinay tasks deetana waxaan odhan doonaa dot append child li-deena markaa dhexgeli okay that's it aynu hadda markaasi eegno siday wax noqonayaan haddaan idhaahdo task 1 waxaan arkayaa inay si automatiga markaasi inoogu soo baxayso qoraalkii aynu halkan ku qornay oo wata markaasi linkyadan sababtaynu class nameka ugu samaynayna waxa weeyaan sababtoo ah class nameskan waxaynu kusoo hagaajinay css deena that's why aynu halkan ugu sameynaynay class names haddii kale oo aanan u sameeyeen class nameskan yacni waxay noqon lahayeen qaar khariban oo aanan sidan oo kale ahayn I hope intaasi markaasi inaad fahanteen haddii aan kusii daro tusaalahaan task 2 waxaad arkaysaan inuu halkan markaasi inoogu soo baxayo okay aynu u gudubno hadda qeybta delete-ka intaynaan delete-ka u gudbin waxaynu u baahannahay qofku markuu submit siiyo waa in meeshani ay masaxmataa markaas yacni waa inay qofku markuu sidaasi submit u siiyo waa inay diyaar u noqotaa oonu u baahan inuu ka masaxo kadibna uu ku qoro waxaan odhan doonaa halkan imow kadibna waxaan odhan doonaa input field dot value is equal to ama equal to empty yani empty string baad leekaysiin doontaa hadda markaan qoro task 1 waxaan arkaya inay si automatiga markaa isku masaxmiso sidoo kale kanna waa inaynu meesha ka saarnaa marka waxaan odhan doonaa message box dot style dot display is equal to none okay hadda markaan qoro task 1 waxaan arkaya inuu si automatiga meesha uga masaxmayo okay aynu gudubno markaasi kuwan functionalityga markaasi kuwana marka kan lagu dhufto waxa ma dhacayaan hadda waa in ay delete garaysmataa taskigan aynu haysano marka functionkan aan ka dhex bixi doonaa halkan hoose ayaan tegi doonaa halka ugu hooseysa waxaan samayn doonaa markaasi function la yidhaahdo remove item okay waxaan samaynay markaasi functionkan haddaan comment halkan ku sameeyo oon idhaahdo delete task yani functionadeena waxaan isku dayi doonaa inaan halka hoose ku ururiyo halkan sarena aynu event listenerkeena markaasi ku ururino waxaynu doonaynaa hadda inaynu event listener ku darno batanadeenan labadan batan ama labadan link marka meeshay ku dhex jiraanna wax weeyaan waa ul-kanay ku dhex jirayaan yani halkan ay dhex yaalaan marka waxaan odhan doonaa diifkan laftirkiisa ku dar event listenerka waxaan odhan doonaa markaasi taskis dot add event listener ha noqoto markaasi mid dhegeysanaysa click kadibna waxaynu u yeedhi doonaa functionkan aynu halka ugu hooseysa ku samaysanay marka waxaan odhan doonaa remove item that is it aynu tagna markaasi halkan haddii aan ugu horeynta idhaahdo console logga e.target oo macnaheedu yahay yani meesha aad target garaynaysid tusaalahaan haddaan ku daro hadda shopping let me show you haddii aynu halkan target garayno waxaad arkaysaan inuu inoo soo saaray link li-da laftirkeedii laakiin haddaan halkan ku dhufto waxaan arkanaa inuu inoo soo saarayo linkiga markaasi removed ah sidoo kale markaan halkan ku dhuftana wuxuu inoo soo saarayaa done yani sababtan ul-ka ugu daray wax weeyaan ma doonaya inaan mid walba goonidiisa ugu daro oo ay noqoto markaasi laba howlood waxaa ka fiican inaad hal line qortid intii aad dhowr line aad qori lahayd oo aad mid walba goonidiisa ugu dari lahayd laakiin sida aad u kala hubinaysid wax weeyaan markaasi inaad tiraadid haddii aanu doonayna inaynu target garayno kaa markaasi delete-ka ah
waxaan odhan doonaa e.target class listigiisu haddii ay ku jirta markaasi contains remove. haddaynu imika kan ku dhufano waxaad arkaysaan inuu inoo soo saaray false. sababta false inoogu soo saaraya waxa weeyaan sababta waxaan u dirnay targetka uu class listigiisu yahay remove. haddaynu kan ku dhufanana waxaan arkanaa inuu inoo soo saaray true. marka inagoo taa ka faa'iidaysanaynaa ayaa aynu kala qaybinaynaa markaa batanadii. okay, waxaan odhan doonaa uma baahni console logan iga masax intaa. waxaan odhan doonaa markaasi if haddii ay markaasi intaasi run tahay waxaynu samaynaynaa markaasi inaynu dhammaantiiba markaas delete garayno. waxaan odhan doonaa markaasi meesha aad ku dhufatay targetka aad ku dhufatay markaasi haddii ay intaasi run tahay waxaad tagtaa markaasi parent elementkiisa, yani diifka ka sarreeya waxa uu noqonayaa markaasi yani key iconska. let me show you here. halkan aynu joognaa waxaanu leenahay parentka tag. waxaynu doonaynaa inaynu parentka kala sii tagno sababta waxaynu doonaynaa inaynu meeshoo dhan yani elementkan oo dhan aynu delete garayno. marka waxaan odhanaynaa dot parent element dot remove. haddaan safe idhaahdo imika oo aynu tagno halkan oo aan sameeyo task 1. haddaan imika kan ku dhufto waxaan arkanaa inuu delete garaysmayo. laakiin haddii aan sidanuun idhaahdo yani aanan odhan laba parent element oo aan sidan idhaahdo mid keliya ta delete garee, markaan kan ku dhufto waxaa delete garaysmayaa yani parent elementkiisii, yani meeshii uu ku jiray diifkii uu ku jiray oo keliyata. laakiin inagu waxaan u baahanay dhammaan waxa meeshan yaallo dhan inaynu delete garayno. waxaan rajaynayaa inaad markaasi taasna fahantay sababta aan halkan laba parent element u geliyay. waxaa kaloon u baahanay markaasi haddii waxaan odhan doonaa markaasi else if e.target.classlist.contains haddii ay ku jirto markaasi done, iyadana waxaynu odhan doonaa waxaynu doonaa inaynu background ka bedelno. waxaan odhan doonaa e.target.parent element .parent element .style.background. backgroundku waa inuu noqdaa markaasi mid cagaar ah, yani colorkan ayaynu ka dhigi doonaa hashtag 9dd9d2. dan safe idhaahdo imika oon halkan tago aynu qorno markaasi task 1. tusaale ahaan haddaan ku dhufto halkan waxaan arkayaa inuu noqonayo backgroundkii mid markaasi cagaar ah. textidana waa inaynu sidoo kale bedelnaa oynu ka dhignaa mid cadaan ah. haddaan intanun copy idhaahdo deetana aan halkan idhaahdo colorka aynu ka dhiginaa waxweyaan markaasi white. safe haddaan idhaahdo hadda oon halkan tago task 1 oon tan ku dhufto waxaan arkanaa in taasina ay shaqaynayso. okay, intaasuu ku eegyahay markaasi functionkan shaqadiisuna. aynu u tagno buttonkan markaasi deleteka. sirtan waynu ugu dambeysiinaynaa laakiin aynu ku xigsiina buttonkan markaa. okay, halka ugu sareysa aan tago halkii event listenerkeeda aynu ku ururinay. haddii aan halkan markaasi comment u sameeyo on idhaahdo all event listeners. okay, bartan aan tegi doonaa buttonka markaasi aynu ku daraynaa waxweeyaan event listenerka kan weeyaan. markaa waxaan odhan doonaa markaasi remove all button ayaan u bixinay markii .add event listener oo dhegaysanaysa markaasi click. kadib halkan aan tegi doonaa oon odhan doonaa markaasi inoo samee magaca functionka aynu doonayno. remove allba haddaynu nidhaano magacaad rabtaad u bixin doontaa dabcan. kadib halkan aan tegi doonaa halka ugu hooseysa waxaan odhan doonaa markaasi delete all tasks. etana waxaan u bixiyey remove all. sidaad u delete garayn karaysaa waxweeyaan inaad tiraadid markaasi halkan waxaynu ku haysanay tasks ulkena oo waxaad odhan kartaa markaas tasks
.inner html baad ka dhigi kartaa markaasi mid empty ah. haddaan iminka san idhaahdo oon sameeyo dhowr midh task 1 task 2 task 3 haddaan iminka kan ku dhufto waxaan arkanaa inuu wixiiba markaa delete garaynayo. yani saasoo kale waad samayn kartaa oo taasi way noqonaysaa, laakiin sida ka wanaagsan ka dhaqso badan wax weeyaan inaad eegto markaasi in taskiskaagu ay wax ku guda jiraan kadibna aad delete garaysid wixiiba. marka waxaan odhan doonaa while taskis.firstChild, yani waxaan leenahay ilaa intay shay uu ku dhex jiro taskiskeena. first child waxay noqonaysaa xitaa haddii xabadi ku dhex jirto, yani inta uu first childku true ka yahay. marka waxaan odhan doonaa taskis.removeChild, childka aynu delete garaynayna wax weeyaan first child, yani mar walba ka ugu horeeya. oo haddii laba midh ay ku dhex jiraan weli waa true markaas inuu first child leeyahay. hadduu list dheer yahay weli waa true. haddii hal xaba ay ku jirto weli waa true, laakiin marka uu maran yahay wax first child ma yeelanayo. haddaan save idhaahdo hadda on sameeyo number 1 2 3 kadib haddaan ku dhufto halkan waxaan arkayaa inuu delete garaysmayo dhammaantii. laakiin aduu eeg kolba tii aad jeclaatid isticmaal, ama tan ama tii hore. badanka anuu tan aan jecelay. okay, waxaan doonaynaa in qofku marka uu click siiyo halkan sababtaa qofka gacanta kaga dhici kartaa inaynu hubino oo aynu weydiino qofka inuu hubo markaa shaygan uu sameynayo. marka halkan aan iman doonaa, waxaan odhan doonaa if confirm, kadibna waxaan weydiin doonaa userka are you sure, kadib uu markaasi functionkani dhici doonaa. inoo wada qaad marka intan inoo dhex dhig halkan save 1 2 3. okay, markaan hadda ku dhufto waxa weydiin doonaa markaasi inaan hubo inaan delete gareeyo iyo in kale. markaan okay ku dhufto markaasuu delete garayn doonaa. okay, intaa aynu kaga nimaadno buttonka markaasi delete garaynaya dhammaantood, waxaan u tegi doonaa shayga keliyata inoo harsan wax weeyaan filtertan marka laga search garayn karo taskiska uu qofku haysto. marka halkan aynu ku haysanay search input, halkan aan tegi doonaa kadibna waxaan odhan doonaa search input dot event listener ku dar. markaa event listenerkani waxay eegaysaa key up, yani qofku marka uu farta ka qaado uu qoro shayga uu doonayay. waxaan u bixin doonaa functionka aynu u baahanay inaynu u yeedhno search task. okay, halka ugu hooseysaan tegi doonaa markaa aynu sameyno search tan halkaa ku qoro. deetana waxaan odhan doonaa function search task ayaynu usoo bixinay. haddaynu u sameyno parameter ugu horeynta waxaan odhan doonaa shayga uu qofku geliyey ℎ𝕒𝕒𝕒 waxaad u bedeshaa markaasi lower case u bedel, yani far yaryar waa inaad u bedeshaa. sababta waxaynu doonaynaa inaynu isku eegi karno ta meesha ku jirta iyo tanba. haddaynu halkan variable ku kaydino oo nidhaahno text input is equal to ℎ𝕒𝕒𝕒 to lower case. kadib waxaan odhan doonaa documentka tag query selector all. dhammaan markaasi waxaynu eegaynaa taska aynu haysano dhammaantood ayaan soo dooranaynaa hadda. kadibna waxaynu odhanaynaa for each methodkan ku dar for each la idhaahdo, yani waa dhammaantood baad looping through ku samaynaysaa. kadib waxaan samayn doonaa function halkan items baan u bixin doonaa. haddii aad rabtid adu waad u bixin karta taskis ama wax kalaba. waxaan samayn doonaa markaasi variable la idhaahdo item gooni ah, yani itemskii baynu halkan ku haysanaa. tanna waxa weeyaan markaasi item individual xabad inaynu markaasi u eegayno. marka waxaan odhanaynaa itemska aynu halkan ku haysano dot first child dot text content. waxaynu eegaynaa markaasi first childka aynu heli doono text contentigaasi waxay tahay, oo variable baynu hadda halkan ku kaydsanay. aynu eegna markaas. marka waxaan odhanaynaa if item
marka ugu horeysa waa inaad u bedeshaa lower case si ay markaasi isku mid u noqdaan sorry to lower case let me go to here halka laftirkeedu waa method waxaan ka iloobay markaasi bracketska waxaan odhan doonaa markaasi index of text input yani haddii ay leedahay waxaynu eegaynaa index of text input keena aynu haysano ayaynu eegaynaa haddii laga heli karo markaa waxaynu leenahay haddii aanay la mid ahayn is not equal to -1 sababtoo haddii laga heli karo -1 ma noqonayso marka haddii xaraf ka mida uu ku jiro la mid ah waxa uu qofku markaasi geliyey waxaynu leenahay items.style.display is equal to block ina tus markaa yani haddii laga heli karayo oo xarfaha qofkaasi uu geliyey laga heli karayo listigeena meesha yaala xarfa la mid ah waa inaynu markaasi soo saarnaa elementka haddii kale waxaynu odhanaynaa haddii kale items.style.display none okay intaas weeyaan markaasi let me check aynu hadda halkan gelino number 1 2 3 4 5 kadibna aynu isku dayno inuu number 1 ka helno kale waxaan arkanaa inuu number 1 kii noo soo baxayo haddaan o keliya qoro wuxuu ii soo saarayaa dhammaan kuwii ay ku jirtay xarafka o yani waa functionkani waxa uu raadinaya markaa waxaynu leenahay haddii indexkoodu inputkaa la geliyey haddii aanu -1 ahayn badanka programming languagesku waxay sameeyaan haddii listi dheer aad qortid oo aad ka raadisid tusaale ahaan listigaa shay aanan ku jirin waxay soo celinayaan markaasi -1 marka waxaynu leenahay haddii aanu -1 la mid ahayn waxay ka dhigantahay xarfihiibaa qeyb ka mida isku mid ah marka waxaynu leenahay kuwa isku midka ah yani block yani soo saar weeyaan haddii kalena displaygooda waxaad ka dhigtaa none this is a little bit harder haddii aanad fahmin markaasi waxoogaa ku yara celi inaad markaasi isku daydid say u shaqeynayso kuwani inaad markaasi fahantid haddii kalena qeybta commentka iigu reeb haddii ay jiraan meelo aanad fahmin waxoogaa wayara adkeed markaa intan ugu dambeysay haddii tusaale ahaan wax kale aynu ku darno halkan aynu nidhaano task 1 task 3 task 4 kadibna aan halkan ka raadiyo task waxaan arkayaa wixii taski lahaay oo dhan inuu iisoo saaray marka haddaan halkan click siiyo inuu delete garaysmanayo haddaan tan ku dhuftanaa inuu markaasi ay noqonayso backgroundkii green dad tan ku dhufatidna wuxuu ku weydiin doonaa are you sure okay markaad tiraadidna dhammaantii markaas uu iswada masixi doonaa projectgan wuxuu waa project markaas si fiican ku anfacaya oo wax badan aad ku baran kartid haddii aad isku daydid inaad adiguna samaysid kan oo kale ugu dambeyn waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysatay projectgan intaasaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono waxaan idkaga tegayaa nabaday